Rabadaan wanaagsan. Magacaygu waa Dr. Darajo. Maadaama aan ku guda jirno bishii Rabadaan ee barakaysnayd, mar kasta ayaynaan hilmaamin akhrinta Qur'aanka Kariimka iyo inaynu ducaysanno. Waxaynu si kooban uga hadli doonnaa cuntooyinka caafimaadka leh ee uu qofku afurkii u qaadanayo, habeenkii cuntooyinku isticmaali karo, suxuurta cuntada uu isticmaalayo, iyo talooyin caafimaad. Fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad sabskraibkayga ay saarto si uu fiidiyogaygan meel dheer ugu gaadho. Haddaba, bisha Rabadaan waa bishii cibaadada iyo caafimaadka labadaba, laakiin dad badani waxay sameeyaan qaladaadyo cunto, taasoo habeenkooda ku keenta daal, madax xanuun, calool fadhi ama harraad badan. Iminka dad badan baa goobaha caafimaadka markay kugu yimaadaan ka cawda madax xanuun fara badan inta lagu guda jiro bisha Rabadaan ee barakaysan. Maxaa haddaba la qaadanayaa wakhtiyadan afurka? Haddaba kadib 12 saacadood ama 14 saacadood oo soona, jirku wuxuu u baahan yahay tamar si tartiib ah loo soo celiyo. Haddaba waxa ugu fiican ee la isticmaalayaa uu qofku ku afuri karaa waa timir ama biyo. Haddaba timirtii waxay soo celisaa tamar degdeg ah. Timirtu waxay leedahay sokor dabiici ah, glucose iyo fructose. Haddaba timirtii macdano muhiim ah ama fiber waxay si tartiib ah u kicisaa sokorta dhiigga. Timirtii maskaxda iyo murqaha degdega ayay tamar u siisaa. Calooshiina timirtii wax culaysa kuma keento. Haddaba waxaa muhiim ah qofki inuu qaato biyo. Biyuhu waxa ay saxaan fuuqbaxa, waxay dhaqaajiyaan wareegga dhiigga. Sidaa darteed, qofka waxa muhiim ah inuu biyo u qaato. Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu sunno ahaa inuu timirta ku afuri jiray. Haddaba qofka waxa muhiim ah inuu qaato maraq fudud. Maraqii fudud waxay kicisaa dheecaanada ama dheefshiidka, waxay yaraysaa calool xanuunka. Haddaba maraqii fudud wuxuu caloosha u sheegaa inay cunto imanayso si aysan lama filaan ayna caloosha wax culays ayna u dareemin. Qofka waxa muhiim ah inuu qaato khudaartii. Haddaba khudaartu waxay ilaalisaa dheefshiidka. Khudaartu waxa ay bixisaa fiber iyo fiitamiino iyo biyo dabiici ah. Waxay ka hortagtaa calool istaagga iyo gaajo degdeg ah. Sonkortu si dhaqso ah ayay kor ugu kacdaa. Qofkii waxa muhiim ah cuntooyinka borotiinka leh inuu qaato. Haddaba cuntooyinka borotiinka leh sida hilibkii, digaaggii iyo kalluunkii. Haddaba cuntooyinka borotiinka leh waxa ay dhisaan muruqyada. Borotiinku qofkii wuxuu ka dhigayaa mid dheregsan. Wuxuu kaloo borotiinku hoos u dhigaa gaajada. Haddaba borotiinkii habeenkiisa oo dhan qofkii tamar buu siinayaa si tartiiba ilaa suxuurta. Haddaba waxa kaloo muhiim ah qofkii inuu qaato bariis ama canjeero. Haddaba cuntooyinkan waxa ku badan carbohydrates-ku. Haddaba carbohydrates-kaasi wuxuu leeyahay tamar fara badan, laakiin dhibta jirta waxa weeye qofkii wuxuu ku keenaa hurdo badan ama daal badan. Marka waxa muhiim ah inuu qofkii carbohydrates-ki xad yar uu ka qaato iska yareeyo. Haddaba qofkii waxa muhiim ah inuu ka fogaado cuntooyinkii shiilana ama cuntooyinkii macaanku ku badnaa. Haddaba cuntooyinka shiilan waxay qofka ku sababaan calool buurnaan bay qofkii ku keeni karaan. Daal kadib afurka ayay qofkii ku keeni karaan. Laabjeex ama acid reflux ayay qofkii cuntooyinkii shiilaa ay ku keeni karaan. Haddaba qofku cabitaanka sokorta badan, hadduu qofku cuntooyinkii sokorta badnaa uu cabo, waxay keentaa sokorta inay si dhaqso ah ay haddaba kor ugu kacdo. Haddaba maxaa la qaadanayaa habeenkii afurka kadib? Qofkii markuu si fiican u afuro oo uu casheeyo kadib muxuu iska qaadan karaa? Qofku wuxuu qaadan karaa waxyaabeen yara midhaha leh ayuu qofku qaadan karaa. Muuskii iyo tufaaxii, caanihii, yogurtkii, lowskii yaraa, iyo qofkii inuu biyo badan habeenkii uu isticmaalo ayaa muhiim ah. 8 ilaa 10 koob ilaa suxuurta inta laga gaarayo qofku uu isticmaalayaa. Qofkii waxa muhiim ah inuu ka fogaado shaahii ama kafeegii, waayo shaah iyo kafeegu waxay kor u qaadaan, waxay qofka ku kordhiyaan harraadkii. Haddaba qofkii suxuurtii muxuu qaadanayaa? Haddaba waxaynu ognahay suxuurtaada oo wanaagsanaataa waa furaha soonkaaga. Haddaba qofku cuntooyinka suxuurta iska qaadan kara waxaa ka mid ah cuntooyinka oatmeal-iska ama rootiga iyo qamadiga qofku iska isticmaali karaa. Ukun ama caano ama biyo haddaba uu qaadan karaa. Haddaba cuntooyinkan aynu soo sheegnay waxa ku badan borotiinkii iyo fiberkii. Haddaba cuntooyinkan borotiinka iyo fiberka waxay leeyihiin gaajo yar iyo tamar dheer ayay qofkii maalintii ay leeyihiin.
haddaba qofku inuu suxuurta isticmaalo oo cabo maaha cuntooyinka macmacaanka waxaas way ku badan karaan waayo waxay keenaan haraad fara badan. Qofka waxa uu muhiima inuuna waqtiyada uu afurayo uuna maxay cuntadii si degdega uuna u qaadan cunto yaro fudud iskaga afuro cuntooyinka timirtii waxaan soo sheegnay kadib uu salaadii tago maxay kadib marka uu soo noqdo si tartiib tartiiba uu cuntada u qaato. Haddaba gunaanad afurka saxdihi wuxuu soo celiyaa tamarta waxa kale uu ilaaliyaa sonkorta dhiigga waxa uu yareeyaa daalka waxa uu qofka ka dhigaa maalintiisa mid fudud soon caafimaad leh ama cunto badan waa cunid sax ah waqtiga saxda ah. Fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe-ka ii saarto like tana aad ugu dhufato wixii comment aad qabtana aad ila soo wadaagto.